عليكم. وقالكن مانتا waxaan uga hadli doonaa sadaqada aad bixinayso waxaad u niisataa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa aad ajir kaga hesho. Waxaa jirto maalin dhabeed masaajid aan ku tukanayay waxaa istaagtay dad oo maxay yiraahdaan waa dhibaataysan dadka way kala duwan yihiin dadka dhibaataysan. waxaa jirtay qof waxaa ka mid ahaa qof dhahaya ilma ay gaajaysan saan insaan waaye calool xumo darteeda xitaa u oonayay. waxaa jirta marka jamaacada oo masjidka ku tukanaysay waxaa dhacday inay dhaheen dadka qaar inay dhahayaan ninkan waa beentiisa waa la yaqaanaa bas uu siinaya saan insaan waaye. waxaa wanaagsan waxa aad bixinayso in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa aad ugu niisato maxay yiraahdaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir uu kaa siiyo. ma ahan qofkan baahida u istaagay in ay ahaniso. ma jirto qof dharagsan ama wax haysta haddana si tuugsanaya. wax walba aad baxsanayso waxaa la rabaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa aad ugu niisato in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir uu kaa siiyo. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum. wixii aad bixiseen oo khayr ah naftiina aad u bixiseen. haddaba waxaad ogaataa in maxayirada sadaqada wax walba ay noqon karto. maxayirada haddii ay maal tahay haddii ay raashin tahay waxaana wanaagsan qofka masaakiinka ah maxayirada ku tuugsanaya inaad wax ka siiso. waxaadna ogaataa maxayirada sadaqada waxba ma nusqaamiso in maxayirada wax ay ku ziyayso maahine. sidoo kale sadaqadu waxay barakaysaa caruurtaada maalkaaga. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay daawo mardaakum bisadaqa. kuwa in idinka xanuunsan waxaad ku daaweysaan sadaqada. qof walaalkaaga ayaa xanuunsan kara, hooyadaada macaanida ku dhashay ayaa xanuunsan kartaa, sidoo kale aabahaaga ayaa xanuunsan kara. waxaa wanaagsan in mar walba maxayirada sadaqada aad joogtayso. ma ahan qofka oo masjidka soo galay ama ku tuugsanaya in maxayirada aad ihaanayso. mana wanaagsan taasi. maxayirada waana baytullah meesha lagu jiro. ma ahan qof maxayirada inta iska soo galay oo maxayirada iska tuugsanaya ama iska oonaya. qofkan baahi ay istaajisay, baahi ayaana maxayirada u geysay. waxaa wanaagsan wixii aad hayso maxayirada inaad wax ka siiso. nabiga xitaa wuxuu ku tilmaamay sadaqada walow xitaa ha ahaatee timir jeexda ha ahaatee qofkan ku sadaqaysta. waayo maxayirada sadaqadu waxay ka xijaabaysaa naarta, xitaa waxay damisaa dunuubta aad gashay. waxaa wanaagsan mar walba sadaqada in maxayirada aad u niisato in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu ajir uu ka siiyo. ma wanaagsana qofka maxayirada inaad iska ihaanayso ama qofka aad wax ka sheegto. waxaa wanaagsan mar walba in maxayirada afkaaga adinkaaga laga nabadgalo waana maxayirada sadaqada aad wanaajiso si si niyad leh aad ku bixiso. Assalaamu calaykum.